بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaa la geedii afraxood inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka ku daawad doontaan waxa kamid ah waa meelka dhac in Soomaaliya lala ganacsado Kenya oo gubtay badeeco qaali ah oo ka timid Muqdisho iyo Kismaayo sidoo kale waxa aad warkayaga ku daawad doontaan Siciid Dani oo banaanka soo dhigay hoggaan xumadii lagu xaman jiray toddoba qodobna ay isaga darsantay dawladda federaalka Soomaaliya oo si buuxda u qalabaysay isbitaalka Martini ra'iisul wasaare Khayre oo dalab muhiim ah hordhigay wakiilada beesha caalamka dawladda Soomaaliya oo u digtay ganacsatada macaashka ka raadisa xaaladaha adag ma aqbalayna imaaraadka carabta oo ka dhiidiyay arin aan hore looga baran jir xumo mise jawi kale dayuurad oo Ingiriiska Turkiga u diray oo wajigabax kala kulantay liiska dawladaha toogashooyinka ugu badan fuliyay oo la soo saaray Soomaaliya oo ku jirta mid ka mid ah bukaana ku jiray xarun karaatil oo ku taala Garowe oo geeriyooday qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu idin haynaa waa arbaco taariikhdu ku beegan tahay 22 Abriil 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan ha naga hilmaamina aan ku bilaaba marka hore dawladda Kenya ayaa gubtay kalluun qalalan oo Soomaaliya laga soo xaday oo ku fadhiya 5 milyan oo shilinka Kenya ah kalluunkan oo ku kala jiray 760 loor ayuu cufiskiisu dhamaa 12 tan waxaana dhawaan lagu qabtay Makuwacheni in yar kadib markii uu ka yimid Muqdisho iyo Kismaayo kalluunkan oo loo waday magaalada Mombasa ayaa waxa gubistiisa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka Lamu County Irunga Macharia iyo saraakiil sare oo kale waxa kale oo goobjoog ahaa wakaalada badaha Kenya KMA iyo tanbada KBA kalluumaysiga iyo waliba waaxda socdaalka Kenya Macharia ayaa digniin culus u diray dadka ganacsiyada kontrabanka ah geliya amaba ka keena Soomaaliya waa meelka dhac in hadda Soomaaliya lala ganacsado ayuu hadalkiisa ku yiri geesta kaleetana Siciid Dani ayaa soo saaray war dad badan ay la yaabeen kaas oo ku dalbaday in aan wax raashinahi ka bixin maamul goboleedka Puntland raashinka Puntland yaala waxa ay nala noqotay inuu san bixin oo Puntland gudaheeda lagu isticmaalo si loo ilaaliyo in uu yiraahdo ayuu yiri Siciid Cabdullaahi Dani oo ganacsatada maxalliga ah ku amray in sida uu yiri ay raashin u dhoofin gobolada dhexe hadalka Dani waxa ka muuqda dhowr qalad xeerin la'aan iyo waliba guud ahaanba faham la'aan ku saabsan waxa uu ka hadlay waa marka koowaade horta dekada Boosaaso waa hanti qaran oo waxa dhistay dawladda dhexe ee dalka sidaas daraadeedna waxa adeegsigeeda xaq u leh muwaadin kasta oo Soomaaliyeed markii laga soo tago siyaasadaha guracan ee abuurmay burburkii kadib waa marka labaade waxa laga hadlayaa ma aha mucaawino ay ganacsatada Puntland qaybinayaan waa raashin ay iibsadeen amaba ay la soo dageen ganacsato kale tusaale haddii aniga oo degan gobol ka baxsan Puntland aan dooni amaba markab ku soo xirto dekada Boosaaso waxaan kordhinayaa dakhliga Puntland ee waxba ka jari maayo saanadii cunto ee Puntland maadaama aysan Puntland aysan cuntadaasi soo saarin waa marka saddexaad xitaa caalamiyan ilaa hadda ma jirta saanad gooday amaba la kala goostay oo la taaban karo waxa kaliya la joojiyay duulimaadadii rakaabka balse waxa heerkii ugu sarreysay maraysa duulinta xamuulka iyo maraakiibta oo cunooyin iyo daawooyin dunida u kala daabulaya waa marka afraad markii sharciyan la eego ma jirta awood uu Dani u leeyahay in uu dalka kala xiro gaar ahaan markii laga hadlayo isu gudubka badeecooyinka iyo adeegyada muhiimka ah waa marka shanaad dhanka xeerinta xaaladda taagan wuxuu Dani muujiyay in haddii uu hayn lahaa waxa aan gobolada kale haynin oo ku xilan lahaa oo dhibkaasi ku daawan lahaa gobolada kale maadaama uu diidan yahay badeeco aanba isagu soo saarin ee kaliya soo maraysa taasoo xitaa gaf ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka gobeed ee Soomaalida oo cunati u taqaana qofka dheef ku xisha mase qabo inay arintaasi ay kula jiraan shacabka wanaagsan ee Puntland waa marka lixaad tilaabada Dani waxa ay ganacsatada goboladaasi u dhow Puntland ku dhiirigelinaysaa in ay ka weecdaan oo ay sameystaan ila kale oo ay wax kala soo dagaan sida dekada macmal ah iyo wixii la mid ah sida iminkaba ka bilaabatay dekada Hobyo oo haddaba la isticmaalo lana dhisi rabo taasoo dakhli badan dhaafinaysa maamulka Puntland waa marka doddobaade waxay kale oo keeni kartaa inay gobolada uu quseeyo warka Dani ay iyaguna cishadaan wax soo saarkooda u baxa dhanka Puntland sida qudaarta raashinka dalka ka soo go'aya wixii la mid ah taasoo arin aan wanaagsaneyn haddaba doddobadaasi qodob waxa ay ku tusinaysaa in Mr Dani oo muujinaya qiimo badan dhanka hogaaminta uusan ka baaran degin go'aanka uu soo saaray iyadoo ay shacabka Puntland waajib ku tahay in aysan ogolaalin habdhaqanka noocan ah oo aan cidna Dani ugu jirin geesta kaleetana dawladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa in sida ugu habboon uguna dhaqsaha badan loo xakameeyo cudurka corona
ayaa qalabkii caafimaad ee loo baahnaa u dhammaystirtay isbitaalka Martini ee loo asteeyay in lagu daaweeyo bukaanada uu soo riita cudurka safmareenka ah ee dunida oo dhan dhibaatada badani ku haya. Dowladda ayaa maanta qolalka xaaladda degdega ah ee isbitaalka ku xirtay 20 sariirood oo loo dhammaystiray dhammaan qalabkii loo baahnaa si loogu xanaaneeyo dadka ay xaaladoodu aadka u adag tahay. isbitaalka waxaa sidoo kale laga howlgeliyey dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal leh dhammaan takhasusyada loo baahan yahay oo ay ka mid yihiin 10 dhakhtar iyo weliba 10 kalkaaliye oo isbitaalka Digfaar hore uga shaqayn jiray haddana ka qayb qaadanaya xakameynta cudurka corona. waxaa sidoo kale dhawaan ka howlbilaabaya la taliyaal sare oo caafimaad oo ku takhasusay maareynta cudurrada faafa iyo weliba cudurrada neefmareenka. isbitaalka oo lagu howlbilaabay Maars 16 2020 ayaa lagu qaabilay 218 bukaan ah oo 21 ka mid ah la jiifiyey. 4 ka mid ah bukaanadii la jiifiyey ayaa cudurkaasi ka bogsaday dibna looga saaray, waxaana xilligaani jiifa 17 bukaan oo xaaladooda lagula tacaalayo, kuwaas uu ka mid yahay Bashiir Qaasim Maxamed oo cadeeyay inuu ka helay adeegyo caafimaad oo tayo sare leh. dowladda oo sheegtay in adeegyada caafimaad ee lagula tacaalaya cudurka corona la sii horumarinayo ayaa bulshada ugu baaqday in ay qaataan talooyinka caafimaad maadaama marka uu xanuunkaasi soo riito dadka qaba xanuunada raaga ay wax ka qabashadooda adag tahay. geesta kaleetana ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, safiirada dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo weliba wakiilada hay'adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan oo yeeshay kulan dhanka mareegta internetka ah ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka uu marayo, gaar ahaan cudurka safmareenka ee corona. ra'iisul wasaaraha ayaa mas'uuliyiintaasi kulanka qaybta ka ah ku wargeliyay in dowladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorsheysnaa ee dowladda lagu caawinayay loo leexiyo wax ka qabashada cudurka halista baan caalamka ku haya iyo weliba caawinta dadka nugul ee saameynta ay ku yeelanayaan talaabooyinka lagu xakameynayo cudurka. Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa safiiradaasi u sheegay in la joogo xilligii caawinta baahida ugu badani loo qabay, ayna muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badani maamul goboleedyada dalka looga dhiso min hal isbitaal oo awood u leh la tacaalidda bukaanada uu haleelaya cudurka corona. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda oo beesha caalamka uga mahad celiyay taageerada joogtada ah ee shacabka iyo weliba dowladda Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin ayaa cadeeyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay dowladaha saaxiibka la ah iyo weliba hay'adaha caalamiga ah ay ku xasuusan doonaan hadba sida ay gacanta uga geystaan ka gudbitaanka xilliyada adag. safiirada iyo weliba wakiilada hay'adaha caalamiga ah oo bogaadiyay dadaalada dowladda iyo weliba hawsha isku dubridka ah ayaa ballan qaaday in dhammaan qorshooyinkaasi howlgalladooda ay dalka u weecinayaan xakameynta cudurka corona iyo weliba caawinta qoysaska danyarta ah ee Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad ay u tahay badbaadada iyo weliba badqabka bulshada ayaa dadaalkeeda oo dhan isugu geysay sidii ummadda Soomaaliyeed looga samata bixin lahaa cudurkan laayaanka ah oo dunida dhan dhibaatada ba'an ku haya. geesta kaleetana wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed uga digay in ay kordhiyaan qiimaha maciishada dalka xilli dhawaan dowladdu canshuur dhaaf samaysay. wasiirka oo shir jiraa'id ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada macaashka ka dhex raadisa xaaladaha adag ee waddanka uu ku jiro, maadaama ganacsatada loo sameeyey canshuur dhaaf 100% ah iyo weliba badeecadaha qaar oo canshuurtii laga dhimay. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay u naxariistaan shacabka isla mar ahaantaana ay maanta garab u noqdaan shacabkooda maadaama dalka uu ku jira xaalado aad u adag oo uu sababay cudurka corona. wasiirka ayaa ku booriyey in ay maalgashi ku sameeyaan wax soo saarka dalka sida xoolaha, beeraha, kalluunka iyo waxyaabaha la halmaala si looga maarmo waxyaabaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofinayo. ugu dambeyn wasiirka ganacsiga ayaa tilmaamay in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay wada dadaalo badan oo ay wax kaga qabanaysa ganacsatada isku dayaysa in ay qaaliyeeyaan maciishada waddanka, waxaana uu cod dheer uu ku muujiyey in dowladdu ay fulisay codsigii ganacsatada ee ahaa in canshuur dhaaf loo sameeyo, sidoo kalena wax laga qabta caqabadihii jiray ee dhinaca badeecadaha waddanka imaanaya. sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in ganacsataduna ay waajibaadkooda gutaan oo ay ummadda u naxariistaan. geesta kaleetana nin Hindi ah oo ku dhaqan magaalada Dubai isla mar ahaantaana Twitterka ku faafiyey warar muslim nacayb ah ayaa waxaa indhaha u shidatay amiiradda Hayn Al-Qaasimi oo ka mid ah qoyska boqortooyada Imaaraadka Carabta, taasoo keentay inuu cabsado oo koontadiisii dhanba iska tiro. ninkan oo Twitterka ku isticmaalaya magaca Soraba Ubadi ayaa soo tiwadgareeyay dhowr fariimood oo ku bartilmaamsanaya muslimiinta, taasoo ay ka soo jawaabtay Prince Qaasimi oo screenshotna ka soo qaadatay iyadoo oranaysa waxaad rootiga iyo subagaaga ka heshaa dalkan aad ku jeesjeesayso balse laguguma dayn doono.
imaaraadka carabta ayaa baryahanba waday dagaal uu kula jiro hindi meel uga dhacaysa muslimiinta xilli ay cadaadis wajahayaan muslimiinta dalkaasi iyadoo imaaraadka lagu eedeeyo in uusan damba ka lahayn Rakesh Keturmah oo madax u ah shaqaalaha Emerald Service oo saldhigata Dubai ayaa khamiistii hore la ceeriyay kadib markii uu ku jeesjeesay sida ay muslimiinta uga jawaabeen cudurka corona iyadoo dacwad loo haysto sida uu qoray Gulf News nin reer Hyderabad ah oo xisaabiye ka ah Emirates ayaa isna albaabka la tusay kadib markii uu faafiyay warar sheegaya in ay muslimiintu kas u fidinayaan cudurka corona nin kale oo Hindiya oo maariye ka ah Abu Dubai ayaa isna wajahaya tilaabo sharci ah kadib markii uu islaamka ku sheedaamiyay baraha bulshada Meta Shua oo maariye maaliyadeed ka ah shirkad degan Abu Dubai ayaa baraha bulshada ku faafiyay war uu ku sheegay jihaad candhuuf tufaya si uu u faafiyo cudurka corona shil kale nin Hindi ah oo muslim ah oo booqasho ku yimid imaaraadka si uu shaqo uga helo ayaa waxa inuu Pakistan aada u sheegay mid kale oo Hindi ah oo la yiraahdo Bandari kaasoo shirkada kule imaaraadka dhiidhinta gabadhan iyo weliba talaabooyinkan ayaan ahayn kuwa hore looga bartay imaaraadka walow aan weli jirin mowqif siyaasadeed oo ka yimid nidaamka imaaraadka oo ku saabsan cadaadiska muslimiinta Hindiya imaaraadka ayaa bari dhowad waxa ay ra'iisul wasaaraha cunsuriga ee Hindiya siiyeen bilada ugu sarreysa ee la siiyo qof rayid ah jeer ay meel xun maraysay xiisada Pakistan iyo Hindiya oo Kashmir isku haystay geesta kaleetana diyaarad xamuula oo ay leeyihiin ciidamada cirka Britain ayaa iyadoo gacan maran weli fadhida garoonka Istanbul oo ay ku sugayso 84 tan oo ah saanad aad loogu baahan yahay oo lagula tacaalaya cudurka corona dayuuradan oo ah Atlas A400 ayaa garoonka taala iyadoo aan muuqanin agabka neefbadbaadiska ee looga diray Turkiga oo laftiisu hardan adag kula jira caabuqsidaha corona oo dalkaasi ku sii kordhaya dayuuradan oo qorshe u ahaa in isla markii la diray soo laabato ayay warajaha wareersanay ka soo baxayaan iyadoo weli halkaasi taala sida uu soo sawiray Mail Online ila ku dhow Raaf ayaa sheegay in ay ku rajo weeyihiin in dayuuradaasi la soo saarayo saanada ay Turkigu u doontay lama hubo ilaa hadda waxa qaldan labada dhinacna kama hadlin in ay jirto cilad farsameeyay in kale geesta kaleetana dalka Shiinaha ayaa sanadii tagtay toogtay kumanaan dad ah halka ay Iiraan oo labaad ku jirta ay toogatay in ka badan 250 ruux sida ku cad warbixin ay iminka soo saartay Amnesty International guud ahaan dunida waxa hoos u dhacay dilalka toogashada ah ilaa 5% kuwaas soo gaaray halkii ugu hooseysay muddo 10 sanadood ah waana 657 ruux hase yeeshee xisaabta kuma jiraan kumanaan ay Shiinuhu toogteen Iiraan ayaa dishay ugu yaraan 251 qofood kuwaas oo ay ku jiraan 4 qofood oo 18 sano ka yar markii ay dambi galeen sida ay sheegtay Amnesty Sacuudiga oo qudha ka jiray 184 ruux ayaa saddexaad ku jira halka dalkeena Soomaaliya oo 12 ruux toogtay ay kaalinta 8 taagan tahay ugu dambeynna guddiga wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka corona ee deegaanada maamulka Puntland ayaa sheegay in mid ka mid ah dadkii ku jiray xarun dadka lagu karantiila uu geeriyooday iyadoo aysan weli soo bixin natiijada baaritaanka dheecaan laga qaaday marxuumka maalmo ka hor waa qofkii labaad oo hab noocaas ah ugu geeriyooda deegaanada Puntland waxaana bishii la soo dhaafay geeriyooda qof la tilmaamay in uu lahaa calaamadaha lagu garto xanuunka corona inkastoo marxuumkaasi aan laga qaadin wax dheecaan ah oo aan lagu sameeynin baaritaan guddiga ka hortaga cudurka corona ee Puntland faahfaahin buuxda kama uusan bixin qofka geeriyooday ee looga shakaysanaa in uu qabay cudurka dhinaca kaleetana waxa uu sheeciyay guddigaasi in 9 ruux oo cusub saacadihii u dambeysay lagu karantiilay xarun ku taala magaalada Garowe Puntland waxa ay baaritaanada dadka looga shakiyay cudurkani u dirtaa meel ka baxsan deegaanadeeda maadaama aysan haysan qalabka lagu ogaado waxaana ilaa hadda laga helay deegaanada Puntland hal kiis oo corona ah Haykal Daahir Umar waa bukaanka kaliya ee laga helay xanuunka corona deegaanada Puntland wuxuuna sheegay in xaaladiisa ay soo hagaagayso rajo wanaagsan oo ka qabo in maalmahana soo aadan uu ka bogsado xanuunkaasi qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaynu kaga tageynaa guul iyo gobonimo